وحساكا كبلاد مي بروسلس حالمتا ميدوغا يوروب شروينها الصومالية لغا هدلايا arrimaha horumarinta Soomaaliya dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda loo dhan yahay iyo ka soo kabashada abaaraha iyo waxyaabaha la midka oo ku xusan qorshaha qaranka ee madaxweyne qaranka iyo siyaasadihii madaxweyne Farmaajo lagu doortay shirkaas oo ay wada martigeliyeen midowga Yurub magaalada Brussels ee dalka Belgiga iyo Sweden waxa uu furmay saaka qaybtiisii hore waxaana ka soo qayb galay wadamo fara badan oo caalamka ah waxa ka soo qayb galay hay'adaha caalamiga ah ee nala shaqeeya bangiga adduunka IMF iyo hay'adaha lacagta adduunka dhamaantood waxa kale oo ka soo qayb galay wadamada jaarka aynu nahay wadamada ciidamada ka joogan Soomaaliya qaybtii hore waxa laga hadlay siyaasadda loo dhan yahay oo laga hadlay doorashooyinka 2021 dhamaystirka dastuurka iyo dib habeyntiisa dhamaystirka xeerarka doorashooyinka ee suurtagelin kara in doorasho xor ah oo hal qof iyo hal cod ay dalka ka qabsanto iyo arrimaha amniga oo si weyn looga hadlay iyo sidii ciidamada Soomaalidu ay u awoodi lahaayeen in ay la wareegaan amniga qaranka oo iyagu ay hantaan in ay dalka mas'uul ka noqdaan waxaan berita gali doonaa qaybta weyn ee shirka ee madaxda caalamku isugu iman doonaan oo uu furi doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kale oo shirka ka dhacay oo barbar socda shir doceed looga hadlayo barakacayaasha qaxoontiga iyo xilal halmaala iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo doorka private sector-ku uu ku leeyahay horumarka dhaqaalaha iyo sidoo kale haweenka amniga doorka ay ku leeyihiin iyo dhalinyaradu shirku si fiican buu u socdaa maanta ilaa berri buu socon doonaa